magaalada taariikhiga ah ee Istanbul xarunta dhaqaalaha dalka aynu walaalaha nahay ee Turkiga ayaa isku diyaarinaysa martigelinta shirweynaha iskaashiga dawladda Turkiga iyo qaaradda Dihan ee Afrika. Shirkan oo ah kiisii saddexaad kana furmaya Istanbul 17 bishan December ayaa la filayaa in lagu lafaguro marxaladda cusub ee ku aadan xiriirka Turkiga uu la leeyahay ururka midowga Afrika iyo dawladaha qaaraddaba, waxaana ajendayaasha loo madlan yahay lafagurkooda ka mid ah nabadda, amniga, dhaqaalaha, dhaqanka, dalxiiska, waxbarashada, awoodsiinta dhalinyarada, isdhaafsiga tiknoolajiyadda, caafimaadka iyo warbaahinta. inkasta oo ka qaybgalayaasha madashan oo isugu jira hogaamiyaal iyo diblomaasiyiin matalaya dalalka iyo ururada ka jira qaaradda Afrika ay ku casuuman yihiin ka qaybgalka kulankan, haddana waxaa si gaar ah uga dhex muuqda dalal lafdhabar u ah jiritaanka xiriirka iskaashi ee Afrika iyo Turkiga. dalkeena Soomaaliya ayaa loo arkaa buundada xiriirisa xiriirka Korea ee ka dhaxeeya Turkiga iyo qaaradweynta Afrika. laga soo bilaabo gargaarkii bini'aadanimo ee Turkigu ku soo beegay waqtigii Soomaalidu u baahnayd, kaalintiisa dawlad dhiska dalkeena, amniga, horumarinta dhaqaalaha, waxbarashada, isweydaarsiga ganacsiga ilaa isku socodka dadweynaha labada dal ayaa tiir dhexaad u noqday xiriirka xididaystay ee ka dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya. xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya oo ah soo jireen soo taxnaa ilaa boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxa uu dib u xoogaystay sanadkii 2011 waqtigaasi oo dalka ay ku dhufatay abaar ba'an. si indhaha caalamka loogu soo jeediyo macluusha ka jirtay Soomaaliya, waxaa Muqdisho booqasho taariikhiya ku yimid madaxweynaha dalka Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan oo xilliga ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi, isagoo oo amray in hay'adaha dawladda iyo shacabka dalkiisuba caawiyaan dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay. hay-adaha iskaashiga iyo isku xirka bisha cas ee Turkiga iyo hay-adaha aan dawliga ahayn ee dalkaasi ayaa fuliyay howlgalkii ugu ballaarnaa ee gargaar caalami ah. wixii waqtigaasi ka dambeeyay, kaalmada bini'aadanimo iyo horumarinta farsamada ee Turkigu siiyo Soomaaliya ayaa kor u dhaaftay adduun lacageed oo ka badan 1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. waxaa sidoo kale la taabageliyay mashaariic horumarineed oo dhinacyo kala duwan leh sida caafimaadka, waxbarashada, adeegyada dawladda hoose iyo kaabayaasha dhaqaalaha. gargaarka Turkigu kaliya gacan kama geysan ka hortagga macluusha, balse sidoo kale waxa uu si weyn gacan uga geystay geedi socodka dawlad dhiska dalka. Turkigu si ka duwan daneeyaasha caalamiga ah wax shuruuda kuma xiro barnaamijyadiisa horumarineed ee Soomaaliya. tallaabadaasi oo ka dhigtay saameynta Turkiga ee Soomaaliya mid waxtar leh la iskuna haleyn karo. saameynta sii kordhaysa ee Turkigu waxa ay qayb ka tahay siyaasadda dheelitiran ee Ankara ay ku wajahayso bariga Afrika, isaga oo si gaar ah u bartilmaameedsaday dalka ahmiyad juqraafiyadeed ka weyn leh ee Soomaaliya. waxa uuna meel sare gaarsiiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya Soomaaliya, taasi oo horseeday in Muqdisho uu ka hirgeliyo dhismaha safaaradda ugu weyn ee Turkigu ku leeyahay caalamka. si looga faa'iideysto muhiimadda juqraafiyadeed ee Soomaaliya ay ku leedahay badweynta Hindiya, dawladda Turkigu waxa ay heshiisyo militari oo badan la saxiixatay dawladda Soomaaliya. heshiisyadan oo quseeya dhinacyo isugu jira tababaro ciidan iyo difaac waxaa ka mid ah dhismaha saldhigga ugu weyn ee Turkigu ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa. xaddiga ganacsi ee laba geesoodka ah ee ka dhaxeeya Muqdisho iyo Ankara ayaa sii kobcaya sanadihii u dambeeyay, isaga oo gaaray adduun lacageed oo kor u dhaafaya 272.76 milyan oo dollarka Mareykanka ah sanadkii 2020. qiimaha guud ee maalgashiga Turkiga ee Soomaaliya ayaa isna gaaray 100 milyan oo dollarka Mareykanka ah. qurba joogta Soomaaliyeed ee ku noolaa Yurub iyo waqooyiga Ameerika ayaa maalgashi ku sameeyay fursadaha ganacsi ee ka jira Turkiga, iyaga oo deegaameystay magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi, taasi oo muujinaysa xiriirka qotada dheer ee labada ummadood. halka dalka Turkiga ganacsato iyo dalxiisayaal badan ay u soo hayaameen dhanka Soomaaliya. isdhexgalka ee bulshada labada dhinac, bulshada Turkiga iyo bulshada Soomaalida, heshiisyo door ah baanu sameynay oo galay diyaarinay 4 sanadood ee la soo dhaafay. heshiisyo igu horeeyayna waa jireen oo baarlamaanka aan marinay intii aan joognay. heshiisyadaasi waxay sahlayaan isdhexgalka
dhinaca arrimaha bulshada. xiriirka Turkigu la leeyahay qaaradda Afrika waxa uu ku saleysan yahay mabda'a xalinta dhibaatooyinka Afrika iyo ka faa'iideysiga fursadaha dhaqaale ee qaaradda hodanka ah ee Afrika. si taasi loo xaqiijiyo, Turkigu waxa uu qaaday tallaabooyin uu ugu dhowaanayo Afrika isaga oo kordhiyay tirada safaaradaha uu ku yeelanayo qaaraddan. Turkigu waxa uu qaaradda Afrika ku lahaa 12 safaaradood sanadkii 2002. tiradaasi hadda waxa ay gaadhay 43 safaaradood oo ay ku jirto tan ugu weyn ee uu caalamka ku leeyahay oo ku taala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. tirada safaaradaha Afrika ee Ankara ayaa iyaguna kordhay oo gaaray 36 safaaradood horaantii sanadkan sii idlaanaya ee 2021.